السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين وايدين سلامة ميل والباد جوجتان وعبدي محمود قلاع يا برنامج كيدين كي مجري معهد كنبضة يا بلشدة ولا لي البرنامج عاو حنو كسو قاضينا وحنو كفل علينا هنا هذا الكيو تشيدي وسيرك قاشاندق الصوماليا عبد القادر نور نينكا اللي يراضوهم كوما عدير وسير تيك توك وسير تيك توك wuxuu la yimid faan iyo in dowladiisu wax qabatay iyo inuu ummadda Soomaaliyeed wax u taray ayuu la yimid oo ku dooday oo sheegtay wuxuu kaloo sheegtay inuu magaranaysa dadka Soomaaliyeed oo uu ku dooday in dadka Soomaaliyeed qaarkood ay horumarka dowladdu sameysay ay ka soo horjeedaan oo ay magaranaysa ka naxayaan markii horumar dhaco waxyaabahaas oo dhan waxyaabo runtii been abuura ceebna ku ah nin weyn oo mas'uul ah inuu waxyaabaha caynkaas uu ku hadlo cadeynteedana waa haynaa waana mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay og tahay oo muuqata wasiir TikTok horta midda ugu horeysa wax qabadka uu sheegay bal wasaaradii gaashaandhigga oo mas'uulka uu ka ahaa isaga hal la weydiiyo ciidamadiiba cuntadoodii iyo saadkoodii la gatay musuq maasuqiiba ciidamada dhexdiisa iyo magaranaysa ku baahay saanadii iyo hubkii baa la dhunsaday ciidamadii baa kala tagay oo waxa leeyahay qaar iska tageen oo maaragtay xiriyahoodii ka tageen al-shabaab baa meelo badan ku maaragtay baabiisay oo dhibaato geysatay wasiir TikTok marka wax qabadka uu sheegayo oo uu qabtay oo ummadda Soomaaliyeed u qabtay maxay tahay markaynu eegno rikoodkiisa iyo wax qabadka wasaaradda loo xilsaaray waa mid runtii baaba ah oo meel hoose gaaray niyad jab ku keenay ciidamadii niyad jab ku keenay ummadda Soomaaliyeed horumarkii la higsanayay oo la doonayay in la gaaro runtii u bedelay dib u dhac iyo magaranaysa kala firxad iyo kala carar wasiir TikTok hadduu joogi lahaa adduunka meelaha xisaabtan ku jiro run ahaantii mar hore ayuu shaqadiisa waayi lahaa mar hore ayaa la eri lahaa waxaa kaloo oo taa u heliyay wasiir TikTok oo isagu hogaamin jiray nimanka ummadda Soomaaliyeed ilaahay ku saliday al-shabaab qayb ka ahaan jiray oo kamid ahaan jiray ma garanaysaa dadka halka ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateeya inaanay cadeyn inuu xataa arrinta wali ka toobad keenay si cad loogama hayo meel uu yiri khalad baan galay waa xumaaday ummadda Soomaaliyeed ay saamax iyo cafis baan idin weydiistay waa ka shalaayay waxaan geystay anu kulay ma arag markaan arrintan baaray dad badan wareystay ama rikoodho qoraal iyo wax raadiyayna ma arag qofkii haya waa ila soo wadaagi karaa marka wasiir TikTok run ahaantii shaqada uu hayo ummadda Soomaaliyeed ma muuqato inuu ku mutaystay karti iyo ma garanaysaa wadaniyad iyo ma garanaysaa nin yani u qalma shaqada inuu ku mutaystay ma muuqato I don't know suu meesha ku tagay mararka qaarkood waxba iska dhaca ma nasiiba ma wax kala waxay tahay ma aqaan waxaan ku sharxa ma aqaan laakiin way dhacday inuu halka tagay oo wasiir noqday oo dawladii jagooyinkii ugu sarsareeyay mid kamid ah oo runtii qabtay laakiin aanu kamera dhalin oo ma garanaysaa arrimahaasi ay meesha ay ku dambeeyeen aad arkaysaan maanta wuxuu kaloo wasiir TikTok ka sheekeeyay oo ku dooday wax qabad dawladdu kanay qabatay sare dheer markii la dhiso dad baa naxa dad baa caynka war saraha dhistay xagee joogan hal sar oo dawladdu dhistay xagee bay joogtaa bal noo sheeg haddii nin shakhsi gaar ah ama private uu halka guri ka dhisto ma gurigaas aduu ku faanaysaa guriga isaga dhistay dantiisu u dhistay boqolaalka kun oo Muqdisho ku nool oo saboolka oo xiriyaha qaxootiga ku jira miyaad u malaynaysaa inuu oranayo kaalay seexda gurigayga ma oranayo isaga dhistay danihiisu u dhistay isaga yaqaan adigu waajibkaagu wuxuu ahaa dawladda haddaad tahay haddaad wax qabad ku faanaysid inaad qabato wax ummadda Soomaaliyeed runtii noloshooda isbedel ku keenaya rubuc milyan baa ku nool baa magaalada Muqdisho dadka ma garanaysaa degan meelaha xiriyaha ma garanaysaa aan rasmiga ahayn oo loo yaqaano IDPs loo yaqaano internally displaced persons loo yaqaano rubuc milyan ayaa halka ku nool
xaaladaha ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiin ilaah baa loo sheegtaa. waa nadaafad xumada, fakriga, ma garanaysaa cuntada ku filan oo aanay helin, hooyga liita, iskorsaaraanta, waa wax laga naxo. meelo badan oo magaalada ka midana duruufo caynkaas la mida ayaa ka jira. wasiir TikTok muxuu qabtay ama dowladiisu maxay qabatay? bal inay dadkaas Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta ay wax ka qabato oo fududayso oo sidaas u dhaanta ay xaaladooda ka dhigta. maxay ka qabatay? ma iskuulley u samaysay? ma biyogelin bay u samaysay? ma guryey u dhistay? ma nadaafad iyo wadooyinka ka shaqaysay? ma canshuur ururin iyo magaranaysaa horumarintii dhaqaalaha ka shaqaysay? ma shaqay abuurtay? bal wasiir TikTok oo waxaad ku faanto oo ummadda Soomaaliyeed aad la hortimaada sheeg. propagando iyo been aad ogtahay inaanay run ahayn oo ciduna kaa yeelayn ayaad halkaa la soo istaagtay. waa waxa loo yaqaano double speak. waxa weeye markaad dadka u sheegayso wax beena oo nonsense oo aan macno lahayn, waxaad doonto ayaad iska oranaysaa. waayo ma xishoonaysid, uma arkaysid war waxaan macquulba, dadku ma garowsanayaan, waxaan ma sheegi kara, waxba kama fikiraysid, waxaad rabtaad iska oranaysaa. bal waxa dowladda Soomaaliyeed maanta ay qabatay, hadday dhaqaalo tahay, caafimaad tahay, nabadgelyo tahay, midnimadeeni hadday tahay, bal meel ay wax ka qabatay sheeg. wuxuu ku dooday oo ururka midowga Afrikaan galay, oo ururka qaramada midoobay baa noloo doonta. adeer waxaas macno ma leh, waxaasi runtii macno weyn ma leh. ma aha wax qofka Soomaaliyeed duruufaha haysta wax ka bedelaya. haddii qaramada midoobay halka waa un iska sharaf, wax weyn oo ay keenaysaa ma jirto, waa iska sharaf. laakiin wax ay ka bedelayso dadka Soomaaliyeed ama qofka Soomaaliyeed oo baahan oo gudaha ku nool, oo fakrigu hayo, oo gaajadu hayso, oo cudurku hayo, oo nabadgelyadu hayso, maxay ka bedelaysaa? adigu shaqadaadu waxay ahayd inaad wax ka qabato, waxna kamaad qaban. miyi iyo magaalo midna dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan wax aad u qabatay ma jirto. xataa ciidamadii iyo departmentigii aad mas-uulka ka ahayd ayaa saa u kala daatay oo u kala maaragtay furfurtay, oo duruufoodii ay meel xun gaareen, oo dadka Soomaaliyeed oo dhan niyad jab ku riday. maxaad ku doodaysaa marka? maxaad sheeganaysaa? inaad ceebtaada meel fariisato aamusto ayay ahayd. laakiin inaad intaad dadka Soomaaliyeed soo dhex istaagto aad tiraahdo waxbaan qabanayo kan, ma ahayn runtii. waxaa kaloo muhiima inaad xusuusato inaadan dadka Soomaaliyeed iska eedaynin. dadka ku dhaliila ama diida dowladdu siyaabaha ay wax u wado cadow kuma aha, dalka cadow kuma aha, laakiin waxbay saluugeen. haddaad marka nin xigmad iyo garasho le tahay, waad gar qaadan lahayd oo waxaad oran lahayd war bal waxaad saluugsantihiin noo sheega, waxbaad ka faa'iidi lahayd. waayo dadka ku dhaliilaya ma aha dad liita ama aan aqoon lahayn ama waayo aragnimo aan lahayn ama shaqo aan aqoon ama maamul aan aqoon, ma aha. waa dad intaasoo dhan garanaya, laakiin dalkooda ayaa lexajaala ka haysaa. dadkooda ayay danaynayaan. sababta ay u hadlayaana waa taas. adigu marka waxaad rabtaa inaad wax kharibto, wax baabi'iso, ma garanaysaa, mas-uuliyadaada ka gaabiso oo lagaa aamuso. taasi ma dhacayso wasiir TikTok taasu ma dhacayso. waxaana kuu sheegayaa shaqadaa ma istaahishid, runtii ma istaahishid. madaxweyne xasan sheekhna runtii wuxuu halkaa kuugu hayo anigu ma garanayo, waayo ma muuqato inaad xilkaa gudan kartid oo aad ummadda Soomaaliyeed waajibka la doonaya inaad u qabatid aad u qaban kartid. markaa dadka Soomaaliyeed oo ku dhaliilaya oo aad eedeynayso cadowga ka dhigaysid iyo kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed, jooji. waxba kuuma tarayso, lagaamana garowsanayo, lagaamana yeelayo. adigoo unbay muujinaysaa karti xumadaada iyo sida aadan runtii fikrad fiican iyo waxtara aadan u haynin oo aadan ula iman karin. adeer shaqada ummaddu kuu dirsatay, bal adigu taa muhiimadaada ahaato. bal ciidamadii Soomaaliyeed daryeelkooda ka shaqee, cuntadoodii iyo hubkoodii iyo dharkoodii suuqyada lagu iibinayo, bal xal u hel taas. markaad adigu qeybtaa aad ka shaqayso, wasaaradda aad mas-uul ka tahay aad hagaajiso, markaa ayaad wax kale ka hadli kartaa. laakiin adigoo waajibaadkaagii iyo xilkaaga ka gaabiyey inaad runtii wax kale ka hadasho ama wax aadan samayn iyo double speak aad la timaadid, ciduna kaa yeeli mayso. wasiir TikTok waxaan ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii disappointment ayaad ku tahay. adiga qaar kale oo badan oo kula mida disappointment ayaad ku tihiin. waxaan rajaynayaa in waqti yimaado laydinla xisaabtamo
oo arrimaha ma garanaysaa iyo gafafka aad galaysaan iyo sidaad hawlihiina uga gaabiseen waqti laydinkula xisaabtamo inuu yimaado. walaalayaal caawa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. waa cabdi maxamuud qalla, barnaamijkii idinka iman jiray Machadka Nabadda iyo Bulshada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.